السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي ساكوبنا سنين فيزيكس كينا فون فور كلا صباحا وحال صباح هذا بيج 5 لا صباحا براكتيس ماشي كقرنا كشقينينا وافر حبو سؤال كواد given كيدا waxaan haysanaa mar rabo inaan ku dheeraado mar rabo video inoo dheeraado mar rabo given and solution aan leenahay su'aasha koowaad given keeda waxaana la siiyay waxaan haysanaa given keeda frequency haysanaa oo la eg 60 hertz haysanaa waxaan naga rabaa marka inaan soo saarno period aan naga rabaa inaan soo saarno solution aan leenahay solution marka tiraado period maxaa lagu helaa marka period waxaa lagu helaa leedahay period t capital loo qaato waxaa lagu helaa 1 loo qeybiye f aan leenahay 1 ka soo qaado f meeqa haysanaa 60 oo hertz haysanaa soo ma is equal dheh marka waxaan soo qabanaynaa calculator-ka waxaan gelinaynaa 1 divided by 60 waxaa soo bixi doonto 0.01666 intaas ka soo qaadanaynaa kadib marka jawaabta buug ku qoran jawaabtan isma lahan waan farsameynayna waxaan sameeynaynaa pointigana waxaan saddex god u dhaqaajin doonaa dhanka midig waxaan leenahay 1 2 3 markaas waxay noqonaysaa waxay gali doontaa 16.6 ay noqon doontaa waagaag waxaan leenahay marka lagu dhuftay 10 aan leenahay 10 ka waa scientific notation kadib waxaan kor ugu jibaareynaa inta 0 dhanka midig u soo soconaa saddex sama saddex kor ugu jibaareynaa kadib 6 aan soo buuxineynaa waa 7 ay noqonay hal inta ka soo qaadan inta ku dareena waa 7 10 power minus 3 waxa loo yaqaanaa milli loo yaqaanaa waxay noqon doontaa marka 16.7 milli time period maxaa lagu cabiri jiray second soo raacsi jawaabta buugana waa sidaas jawaabta buuga marka fiirsana saas soo bixi doonto waana soo saaray taa waxay ahayd practice-ka koowaad ay ahayd midda labaad aan fiirin ayadana maxaana la siiyay given-ka ahaysana muxuu yahay su'aasha aqrino su'aasha aqriya given-ka ahaysana wuxuu yahay waxaan haysanaa number of oscillation haysanaa yani number of oscillation waa 1 waxaan kaloo haysanaa time haysanaa time haysanaa ama time taken sa u taqaanin ba haysanaa time taken haysanaa waa 2.50 times 10 power minus 3 second anoo qoran waxaana loo diray inaan raadino frequency inaan soo helnana loo diray frequency solution aan leenahay frequency maxaa lagu helaa leedahay marka frequency maxaa lagu helaa frequency waxaa lagu helaa number of oscillation يعني انت جيرو wareega uu sameeyay numberka uu sameeyay iyo sidoo kale waxa lagu helaa loo qeybiyo time taken yani aminta ay ku qaadatay number of oscillation waa 1 loo qeybiyo leenahay halkan hal wareeg oo dhameystiran uu ku sameeyay inta 2.5 times 10 power minus 3 okay marka meeshan joogno waxaan sameynaynaa waxa toos ku qeybinaynaa 2.5 isku qeybinaynaa factor waxaan isku qeybinaynaa 1 loo qeybiyo 2.5 aan leenahay number aan soo bixi doono oo ah 0.4 aan soo bixi doono haddaba san yeelena marka 10 kaas yeelena dabagan waxa u qoraynaa koran keeni doona times 10 power 3 aan qan doontaa marka okay hadan si qurxin waxay noqonaysaa marka waxay u dhigantaa 0.4 oo lagu dhuftay 1000 waxay u dhigantaa 0.4 times 1000 u dhigantaa okay aan fududeyna marka waxaan soo bixi doonto marka 400 oo over s soo bixi doonto over s maxaa loo yaqaan marka 400 oo hertz ana soo bixi doonto marka jawaabta labaad buugga marka fiirsana answerka waa 400 oo hertz waa saa u jeedaanba waaya su'aasha saddexaad ayadana su'aasha saddexaad given keeda maxaa haysanaa maxaana la siiyay given waxaana la siiyay waxaa haysanaa number of oscillation haysanaa oo ah 10 yani 40 sorry number of oscillation ka haysano waa 40 wareega haysanaa aminta ay ku qaadatay time taking weeyaan ama tt u soo gaabso time taking ka ay ku qaadatayna waa 10 second waay waxaana loo diray marka laba aana loo diray a e b waxaana loo diray period aana loo diray b na waxaana loo diray frequency aana loo diray rakaad aana loo diray aye solution aan leenahay marka solution markaan dhahno aan soo qaadanayna period waxa loo qaataa t oo weyn loo qaataa ama t capital loo qaataa period maxaa lagu helaa leedahay marka
period waxaa lagu helaa aminta oo loo qeybiyey yani inta wareeg oo waxaan leenahay time taken oo loo qeybiyey number of oscillation lagu helaa time taken keenu waa 10 loo qeybiyey aan leenahay number of oscillation oo 40 wareeg ah kadib markaan isig wal aan dhahno waxay noqon doontaa markaa waxaan isku qaybinaynaa marka 10 iyo waxaan isku qaybinaynaa iyo 40 aan isku qaybinaynaa waxaa soo bixi doonto 0.25 soo bixi doonto kadib waxaan raacsiin doonaa second aan raacsiinaynaa marka su-aasha qaybteeda hore waa kana answer A waxaa soo bixi 0.25 second answerka labaad oo B da nagala rabaa waxaana loo diray frequency waxaa lagu helaa tan cagsigeeda waaye number of oscillation loo qeybiyey waqtiga ay ku qaadatay yani inta wareeg la sameeyey oo loo qeybiyey aminta ay ku qaadatay wareegyada aan haysano waa 40 wareeg haysanaa lagu sameeyey waqtiga lagu sameeyeyna waa 10 second haye 40 10 u qeybi waa 4 waaye kadib maxaan raacsiin doonaa markaa frequency maxaa lagu cabiraa over s weeyaan over s tana waxay u dhigantaa marka 4 hertz ay noqon doontaa jawaabta B markaa fiirisana frequency waxaa la soo saaray 4 hertz anagana hadda waxaan soo saarnay 4 hertz soo saarnay okay tii ugu dambaysa ka shaqeynayna guys midda ugu dambaysa ka shaqeynayna waa su'aasha afaraad maxaa haysanaa marka waxaana la siiyey givenka waxaana la siiyey macalin number of oscillation oo gaarayo 23 wareeg oo dhameystiran la siiyey maxaa lagu sameeyey marka waqtiga lagu sameeyey aminta lagu sameeyey waa imisa 58 second lagu sameeyey ayadana tii hadda oo kale weeyaan waxaana loo diray marka frequency waxaana loo diray second ana loo diray waxaana loo diray waxaana loo diray period ana loo diray B na waxaana loo diray frequency ana loo diray oo rakaad ah ayaa naloo diray aan wada socono waxaan leenahay marka solution aan leenahay marka solution dhahno waxaan soo qaadanaynaa frequency period maxaa lagu heli jiraa leenahay period waxaa lagu helaa leedahay macalin period waxaa lagu helaa time taken oo loo qeybiyey number of oscillation okay time taken keena waa imisa waa 58 second way loo qeybiyaa leedahay 23 scientificaaga soo qaado waxaa isku qaybisaa 58 waxaa u qaybinaysaa 23 jawaabta ku soo bixi doonto waxay noqonaysaa ustaadii 2.52 ay noqonaysaa iska soo gaabay marka 2.5 second period waxaa lagu cabiri jiray second waa SI unitkeeda halkaasay ku dhamaatay haddaa fiirisana waa kaa answer A waxaa la soo saaray 2.5 second isaa lagu soo saaray answer B maxaa lagu helaa marka frequency waxaa lagu helaan leenahay number of oscillation oo loo qeybiyey time taken is equal marka waxaa leeyahay number of oscillation meeqa haysanaa 23 haysanaa loo qeybiyey 58 second is equal haye isku qaybina bal 23 loo qeybiyey 58 waxay la mid noqon doontaa 0.39 over s aan soo gaabina marka iska soo buuxi waxay ku noqonaysaa 0.4 over s or 0.4 hertz ay noqon doontaa jawaabta B haddaa fiirisana waa sax oo 0.4 hertz ayay noqonaysaa marka practice-ka bogga shanaad waan ka shaqeynay insha Allah wixii markaa adagna hala soo sheego hadduu ilaa yiraahdo like video hala saaro asxaabtiina foonfoorada aan loo sii share garay insha Allah marka aad u mahadsantihiin bye